waxa loogu buuxinaa rasaaso naareed sida nebigu uu tilmaamay sallallahu calayhi wasallam waayo markuu ilaahay uu ka hadlayay wuxuu dhahay walaqad daraanaa lijahannama waxaan u khalaqnay kasiiran in badan buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo min aljinni walinsi ah jinni insi badan ayaa jahannama loo khalaqay jahannama loo abuuray sababta maxay tahay lahum quluubun laa yafqahuuna biha qalbiyaalo ayaa la siiyey diinta allah ayay ku dhegaysan waayeen qalbiyaalo ayaa la siiyey diinta allah ayay ku raaci waayeen lahum quluubun laa yafqahuuna biha ولهم آذان مخل آيا لسي ولهم آذان لا يسمعون بها ديغو وحيكو مخلان آيا لسي لا يبصرون بها إيو إندو وحيكو أركان آيا لسي حقا ويكو مخلوين وآيادت كمان فنانين أبوانين والشعراء يتبعهم الغاوون فنانين أبوامين شعراء كل دليالك كوي إلهي دليالك أيو مركا كوتل مامي دتك qiyaamaha wax natiijo ay ku leeyihiin malaha waxa qiimo ay ka leeyihiin malaha markuu ilaahay uu ka hadlayay muxuu dhahay alam tara annahum fi kulli waadin yahimun ma arkin miya fanaaniinta waadi walba inay iskax dawaalanayaan rasuulkii allay muusik ku kortumaan kalaamkii ilaahay ayaa markaa muusik ay ku kortumaan alam tara annahum fi kulli waadin yahimun wa annahum yaquluuna ma la tafcaluun waxay ku hadlayaan waxyaalo aysan falaynin waxyaalo aysan qabanaynin ayaa maadaama ay ku hadlayaan marka fanaaniinta mararka qaarkiisa waxay ku amaanaan madax baaqiina oo xad gudubtay mararka qaarkiisa waxay ku amaanaan jeceelo iyo waxyaalo meeshay ka keeneen aysan la ogeynin marka walaalayaal dhibaatadaasa naga horeysa aan dadaalno rafaadkaasa maadaama naga horeysa aan dadaalno waayo qiyaamaha meel aad iyo aad markaa u dhibaato badan waaye imaam xasan ayaa raabica ku miyaad ma guursatido gabadhii raabiciyadana waxay tihi xasanul basriyo quraanka wuxuu noo sheegay laba wado in la kala maraayo ilaan wa fariiqun fi saciir iyo wa fariiqun fil janna waxay dhahday quraanka wuxuu noo sheegay laba wado in janna iyo naar oo la tagaayo ayaa noo sheegay aniga intiin ku jiraa ii sheeg ayay dhahday gabadhii marka walaalayaal aan dadaalno rafaadkaasa naga horeeyo dhibaatadaasa markaa naga horeyso qiyaamahana waa meel aad iyo aad markaa u dhibaato badan haddii markaa loo dhaho oo lagu dhaho hooyadaada camalkeeda hal xabo keli ayaa kalimin haddaa lagu dhaho maalintaa wax ma sii kordhid waxaad oranaysaa intii naftadeyda aniga jana aan ku hubsanaayo cid ma kasaayi marka walaalayaal daartan waa laga guuraa daartan waa daar aad iyo aad markaa u qaraar badan daartan daar qiimo leh ma ahan marka qof waliba waxaa lagu baahan yahay camalkiisa in markaa meeshaan uu ku qabsado maalin gabir ayaa sakaraaday gabadhii dhowr maalmood ayay markaa sakaraadsaneeday waxaa la damcay markaa in tawxiidka loo laqamo waayo man kaana aakhiru kalaamuhu laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qof waliba warkiisa ugu dambeeyo laa ilaaha ila allah دخل الجنة جنة أيو قلا قف ولبو وركيس أقدم بيو لا إله إلا الله نخذ جنة أيو قلا قودي وهلج علي إني توحيد كأي لقمتو لكن مر الله لما كي سكراتي كوي مدي وحيتي لوذي ولا الله أهنكي لعقله أياوين وأيو قف ولبو وحي كبر بارو كوين أيو كوين هذا قف ولبو وحي قدشتو أيو كوين سيد النبي قوت المامي يبعث الله كل أحد على ما مات عليه قف ولبوحو كدنتو أيا ما دام الوغسو بحيا ولا لي هدادنا مخليسيد هيسها الدمي إذا عدوينك لغسو ديو وحان أرونينا هيسها هالدميو ميلاها هيسها أو موزيكا أو وحيالها لغشدايا وحان دينا هيسها هالدميو هيسها وحفائدو أي ليهين ما انت مجرتو خفك أي بادية
qofka ayay baadiyayaan markuu ilaahay uu tilmaamay wuxuu dhahay ulaa'ika dadkaas ulaa'ika humul ghaawuun kuwaase waa kuwa ilowsan xaqa waayo kuwaase xaqa ayay ilowsan yihiin marka walaalayaal rafaadkaasaa naga horeeya aan dadaalno dhibaatadaasaa markaa naga horeysa aan dadaalno adduunyadan aad u jeedin daar oo kharaar ah waaye maadaama meel oo waxaa la gaari doonaa aysan la dhimanaynin la xanuunsanaynin la jiranaynin 24 sac nimcooyinka oo ilaahay askugu nimceystay ayaa maadaama aad ku raaxaysanaysaa walaalayaal dhibka adduunyada iyo dhibka qiyaamo midka qiyaamaha ayaa weyn maanta qof waliba waxaad arkaysaa laaluush ayuu dhiibaa laakiin meel oo waxaa la gaari doonaa laaluush la qaadan doonin sida ilaahay noo tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ilaahay kitaabkiisa xakiimka inoogu tilmaamayay wuxuu dhahay yaa ayuha nnaas wardadow ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsada waqshow yowman laa yajzii waalidun can waladih mar oo waqti oo waxaa la gaari doonaa waalidka wiilkiisa uusan wax u qaban karin waalidka wiilkiisa maalinta wax uma qaban karo wiilkana maalinta waalidkiisa wax uma qaban karo marka walaalayaal aan dadaalno rafaadkaas naga horeeya dhibaatadaasa naga horeeya aan dadaalno marka kelmadeena waxay ku dambaysahay marka walaalayaal heesuhu waa xaraam heesaha aad u jeedid wax faa'iido ay leeyihiin malaha in wadada adiga ka dhumiyaan maahane wada sax ee maanta ay kugu hanuuniyaan ma jirto waayo qof waliba wuxuu ku barbaaro ayuu maadaama asku weyneenaa marka hadda waxaad arkaysaa ilan zamankan lagu jiro waa zaman fitan ah waxaa la taagan yahay waqti oo diinta iskugu bedelaysay oo dib ay iskugu bedelaysay qofkii qabsada oo deeyo ninkaasi waa halaagsamay waana khasaaray qofkii dhimbishaas dib oo gacanta ku qabsada ninkaasi wuu badbaaday asigaa liiwaanay wardadow aan dadaalno rafaadkaasaa naga horeeya dhibaatadaasaa naga horeeyo وأقولي قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم